أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله. شيخ قف بaa wuxuu leeyahay dad fara badan baan guriga ku afriyaa laakiin tobanka dambe Ramadaan waxaan go'aansaday inaan umrada aado dadkaas aan afriyana aan dhaho iska kala taga marka inaan umrada aado ma ii fadli badan si dadkaas aan afriyay inaan tobanka dambe aan ku darsado umrada aan ka joogo ka ii fadli badan labadaas waad jamciin kartaa iswaafaji laba si waad iswaafajin kartaa inaad umrada aado hawshii cidsi ku sii qabatana oo dadkii ku sii afurisana aad wakiil ka dhigato oo uga tagto wadeeli kartaa ama maqaayad baad saari kartaa ama dad guri leedahay islaantaad ku ballamin kartaa islaantu inay dadka afuriso maxaa diiday cuntadooda u dhigto yimaadaan xunaan billahi tawfiiq mushkila ma leh marka cid wakiilo soo umrayso labada maslaxaba jamci si kalena waad ku jamcin kartaa inaad tagto soo umraysato waa maalin iyo laba bari oo soo noqoto oo umradii fi ramadaanna ka faa'iideysato dadkii aad afurinaysayna aad ka faa'iideysato labadaas siba waad ku jamcin kartaa بمعنى لو الشيء أو إسكاه رمانة يون لجمعين كارن معه تنوات كفايدي سنكرتا وضن كرتا عمرنا وطو عمري سنكرتا نعم بارك الله فيك شيخ سؤال شنكر وحليل هاي عن رفتا أما حاكذا هدي بلطة أفكار الحديثة أو قفك أقول لقو سوانك وحمو قولي ميسا وحوكلا ليه هاي حناقة عرضة فرها بدن qofka asagoo sooman haduu aad u caroodo oo dagaalamo soonkiisi ma nusqaan bis waa afraaya mid horo ah aan dhuufta soonka ma jabinayso masalada labaad ay ruuxa haduu caroodo hadaad carooto oo isceliso oo isxakamayso soonkaagi waxba noqon maayo لأن عرض بني آدم كو وحو إسكعلين كرما بهابا إلهي كمكلفو بني آدم كا هعرونين سوى الله كلفا أسبابتك هو بحين سينا العروض كفهو لكن هدي كو قبطو واسيده هرددو كالي كور رديلو ده هردونين ما صورت قلبه صورت قلبه ووحيالا إلهي بني آدم كو أبوري إني قبصته وعرون روح ساس تردد لو قبصان ما يمحاضو عروت دنبنا كا إيمان ما يمحاضو عروت لكن دنبقو حكا إيمان يا مركاد عروتي وحاات سميسي بعد دنبقو كجرا هداد إسعيلي سوء النبي صلى الله عليه وسلم منك صحابي يقول إيه دردار رسولك إلهي وحكولي لا تغضب عروني بمعنى وحا لقوا وضع عرون انت هداد عروته هفولين وحي يعني عرضة وحدو عروته هكوت اللابسني تلابها كدلين عرضة اسعلي ساس دراديد با روحو هدو عروضو اسعليو وأجر وين كهلية والنبي صلى الله عليه وسلم الروحة قوية معها الروحة محوها ددك اللقدة ليس الشديد بسرعة ninka adag ruuxa adag ma aha ruuxa cid walba lagda ma aha dadka aad u lagda ma aha لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب روح أذك الروح قيمها له والروح النفتي سعليو هنتمرك وعروضه سعلين كروا مركا إني عراكو قبطو صونكا وحيالي ميس لكن صونكا وحيالي هادات كوتي لابسطو خلط كوتي لابسطو عيتنتو أفلقادوتو أدنك وحكا ميسو مركا صح صونكا وحيالي أجركي صونكا وحبو يليا وانا تي ان سو شيغني النبي صلى الله عليه وسلم درسيغني شلي فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم أدو الروح كل عيتمو أما كل دغالمو
ama xumaan kugula kaco yaa waad cadhoon soo maa ha caayin ha la dagaalamin ha ka ficil la qaadanin waxaad tidhahdaa waa soomanay sababtu maxay tahay soonkaaga ilaasho waay marmarka qaarkood waxaa dhici karta ruuxan in lagugu soo dirayba shaydaan kugu soo diray ilan kii shaydaan la dhihi jiray kulligii ma wada xidhxidhna yaa kuwii qaambayda ahaydee waaweynayd ee khayrka darnayd unbaa laga qabtay laakiin kuwa yaryaroo ruuxa tabarta yar ka adag baa jooga ruuxa tabarta yar kuwa legdi kara waa joogaan kuwa yaryaraa baa yaacay marka waxaa dhici karta ruuxan kugu soo fakaday ee ku caayaya kula dagaalamaya shaydaan inuu dabada ka riixayo adiga la doonayo in soonkaaga lagu ciyaaro marka inaad fahmi weydo soo khalad maaha yaa ruuxan waxaa soo isticmaalaya shaydaan baa soo isticmaalay bini aadamkuna mar buu shaydaan soo isticmaala waa kii nabigeenna shaydaanku isticmaalaha waa kii nabigeenna sal alay wasalam isagoo xeedho cunto u fadhiistay ilmo yaroo ordahaya waa kii gacanta daf la yidhi ee nebigu qabtay sal alay wasalam ee yidhi shaydaan baa soo isticmaalay intaan bismillaahi la dhihin ka gaadhsii waay bismillaahi intaan la dhihin ila cuntada bismillahi haddii la dhaho wuu qadayaa shaydaan si uu marka cuntada wax uga cuno cuntada waa in la bilaabo iyadoon bismillaahi la dhihin yuu soo eryaday marka ya ilmo yar buu soo eryaday si uu cuntada gacanta u geliyay isagoon bismillaahi dhihin soomaalit adiga marka inuu kugu soo eryado balaayo aadan garanayninba si soonkaaga uugu ciyaaro soo suurtagal maaha waa inaad marka fahansan tahay waay waa inaad fahansantaho soonkaaga ku ciyaarine dhinac ka mar bismillaahi dheh ya innii saa'imun ka gudub sidaas wey wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay qof maalintii oo dhan jiifa oo hurda qof sooman oo maalintii oo dhanna aanan kicin sidii qofkiis waxoo kale xukun ma noqonay maba dhici kartaba ruux maanta saaka suu u seexday ilaa qoraxdu intay dhacaysa hal marna aan soo miyirsanin waa aad bay baciid u tahay waa masalada labaadee sooxdinta iyo hurdada isku mid maaha hurdada ruuxa dareenkiisii waxbaa jooga laakiin sooxdintu way ka duwantahay saas daraaddeed hurdadaa faraha badan ajirka unbay yaraynoo ruuxa cibaadaadkii uu samayn lahayo taacaadkii unbay seejin mooye laakiin soonka jabin mayso soonku waa saxayaa wallahu aclam baarak allahu fiik sheekh qof baa wuxuu leeyahay haddii qofka uu iska matajiyo haddii soonkiisa uu ku jabaayo aniga haddaan gaari raaco waan matagaa buu leeyahay qofkan marka haddii aan gaari raaco oo aan matago sababtii aniga anaa la imaaday markaas ma qasadkaas ma lii xukumi waa wax sabab qaahira waa wax kaa tan badan wax muxuu ahay adiga awooddaada ku jira maaha gaariga inaad raacdo dan baa kuu geysay laakiin adugu gaariga umaadan raacin inaad iska matajiso soo maa haddaad gaariga u raacday inaad iska matajiso soonkaagu waa jabaya laakiin haddaad gaariga dantaada u raacday iyo maslaxadaada dano kalead leedahay waad iiqsatay kadibna waad ku mantagtay waa sabab qaahira waay waxaad u qasaday ma aha ujeeddadaadana ma aha laakiin waa xaalad ku qabsatay adiga sababtaadana kumayna imaan mubaashir ma aha gaadhigaa wuxuu yahay iyo socodkiisaa sabab mubaashira ah laakiin adiga fuulitaankaad gaadhiga fuushay sabab mubaashiroo toosa ma aha asabayo wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay haddii aan dabaasho ama aan biyo barkad dhex galo soonkayga wax maa gaarin bari waan ka jawaabaynaa masaladaas ka gudub waxay ku jirtaa duruusteenna bari insha allah taala nacam baarak allah fiik sheekh su-aashan kale waxay leedahay qof dumar ah oo ilaa 3 soon isku gagaaray si u qalayn karaa dumarka saan horeba u soo sheegnay caadada iyo dhiigga dhalmadana soonku waa ka tagsiin karaa uurka iyo nuujintuna waa ka tagsiin kartaa kullu daalika waa acdaarta kalena raggay la qabaan sida safarka iyo wixii la mida haddii ay marka soon ka tegay qallaa laga rabaa haddii 2 sano ka tagtay qallihii baa lagu leeyahay
hadday 3 sano ka tagtay waa inay soo qallayso qalloon baa laga rabaa fuqahada waa jiraan sida shaaficiyada iyo xanaabilada dhahaya soon hadduu soo galo adoo mid lagugu leeyahay kaa soo galay eed u dibdhigtay ilaa aad soonkii kale soo galay qallana waa lagugu leeyahay fidyana waad bixinaysaa oo raashin baad raacinaysaa waa jirtaa inay leeyihiin aahaar saxaabada qaar ka mid ay qaadariishanayaan iyo salafkii laakiin wax weeye xadiis marfuuca iyo nas ee quraan iyo sunna ma laha in raashin la raacinayo qallihiin baa laga rabaa ha qallayso oo masalada labaad haddii ay gaadho xad ayna qallayn karin qaasatan dumarka sanadna nuujinaya sanadna uur kale oo laga yaabo inay 10 sano 9 sano isku gaadho xilli ay jilicday oo ayna soomi karin hadday markaa adkaato soomi kari weydo markaas waxaan leenahay waxa markaasi loo fiirin karaa saxaabada qaar ka mid ah madhabkooda sida Abdullah ibn Abbas iyo Abdullah ibn Umar iyo raashin bay markaa bixinayso waxaana maray madhabka sidoo kale imaamkii muhaddithka ee faqiih ahaa muxuu ahaayay Ishaq ibn Rahwiya al-Hanzali alayhi rahmatullah saaxiib Imam Ahmad ayaa isaguna maray oo yidhi raashin bay bixinaysa marka madhabkaas madhab fuqahadu ay lahaayeen khilaafka culimada fiqhiga masaa'isha isku khilaafaan ayaa fawaa'idiisa waxa kamida marmarka qaar kood baa waxa dhici karta madaahibta kamida inuu meel ku adkaado oo ku dhaqankiisiiba ay adkaato ama suurtagal noqon weydo markaas oo kale waxa loo baxsanayaa madaahibtii kale waxa la helayaa meesha iyada madhabkaasi adkeeyay oo lagu dhaqmi kari waayay inay agtooda iyagu ijtihaad ahaan fududeeyeen marka makhraj baa la heli marka saas daraadeed haddii gabadhaasi soonkii ay kari weydo ku adkaato madhabka ibn Umar iyo Abdullah ibn Abbas iyo Ishaq ibn Rahwiya iyo madhabkooda oo inay raashin bixisa ayaa markaasi la marin karaa wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh su'aalo badan oo shalay sheekhu ku jawaabay ayaa meesha ku qoran sida su'aalaha cuntada laga bixiyo dadka aan soomi karin kulli darsiga ayaa lagu noqon karaa shalay insha Allah ta'ala sheekh wixii aan la weydiinin baan weydiinaynaa sheekh qofkan wuxuu leeyahay biyaha madida hadday shahwa ku imaato soonka wax ma yeelaysaa ragga biyaha ka soo baxa xubinkooda taranka kaadida marka laga reebo waa 3 nooc madi baa la yiraahdaa noocna wadi baa la yiraahdaa noocna mani baa la yiraahdaa manidu waa tan way ka duwan tahay oo dareen bay ku soo baxdaa waa biyaha boodaya yani ukunta oo kale oo midab ahaan u eg laziqe dhagaya yani waxa bini aadamka laga abuuro manidaasi waa tii aan ka soo hadalno waa shahwada gudashadeeda galmo ama si kale ala tafsiil fi dalika kala qaadayaan fuqahadu biyaha nooca labaad ee ragga ka yimaada ama yani wax weeye dumarkana waa la qabaanay waa nooca loo yaqaano madidu wax weeyaan markuu ruuxu dareen qaado rag iyo dumarba markuu dareen qaado isaga oo inay wax ka soo baxeen aan dareemaynin ayuu wuxuu ku arkayaa xubinka taranka biyo cad oo dhareer ah oo jiitamaya ayuu isku arkayaa markay soo baxayaanna wax ka soo baxaya ma dareemayso sida manidu kala ma aha manidu markay ka soo baxayso shahwo iyo waxa dareemaysaa yani wax way raax ahaan baa dareemaysaa sooma waa manida ama kuwani inay ka soo baxayaan hada ma dareemayso xubinkii taranka ma waxaad ku arkaysaa qoyaan ku arkaysaa waa markii uu xubinku uu dareen qaado oo ruux dareen qaado markaas oo kale soonku ma jabayo biyaha noocaasa ee madida ah soonka ma jabiyaan qabaysna ma waajibiyaan kaliya waa nijaas meeshii gaadhaana waa laga dhaqi midda labaadna weysada way jabinayaan weysada basi ka adagi way jabin karaan laakiin soonna ma jabiyaan qabaysna ma waajibiyaan ta kalena waa nijaas oo la iska dhaqi meeshii gaadhaan nooca saddexaad ee biyuhu wax weeyaan waa biyada wadida la yiraahdo
wadidu waxa weeyaan ruuxu markuu kaajo kadib ayuu wuxuu isku arkayaa sidoo kale biyo yar oo dhareer ah oo iyagana cad oo jiitamaya waa kaadida gadaashooda iyaguna soo baxaan ayagaana wadi baa la yidhaahdaa madiday la xugum yihiin yani wax weeyaan soonka ma jabiyaan weysaday jabiyaan qabays ma waajibiyaan waa nijaaso meeshay gaadhaan waa laga dhaqayaa laakiin soonka waxba yeeli maayaan intaasa marka loo kala qaadaya wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ سؤال كلا حليضة هاي حجامة أما ديك دتك الغشبة قف إنه ديك دتك الغشبة صانكم ما في لسان سلطة كوساب سان ديك إن روح الله الشبه أما وروح ديك إسكساره أما إليك إسكبحيو صانك ما تشبيني سامي سما تشبيني سيدو كله درسي إن بريبي كوشرته بريبين كهل دون إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا يحكم كذا نعم قف كان حليه هاي قبل هدي أيضا دقيقة أنا كلمة أفريقيا ودي كله ما أنت تسمع سوق لنا صادن هدي إن قرح دي دعن أيضا قرح دي دعن ولو سكننا هكلا بناده أفركي أون لا أفورين هدي دي كودعو مالين كاسي قبضة ما حساب سنة يسوي شبي ويسوق اللين يسا لأن صونكو وعبادة أن قيب سمكرين عبادة وقت له مالين كمركي آذان كودعو هره واجو بريو إلى قرحدو أنت كرد عايزو عبادة وقت جاسودن هيستوى haddii waqtiga qayb kamida ay cibaadadu jabto iyadoo dhan ba isla jabaysa wax kala haraya ma salaadii aad tukanaysi atahiyaadkii ugu dambeeyay imaamkii assalaamu alaykum markuu yiri aduguna laakiin wali aad assalaamu alaykum dheh aday neefikaatibaad salaadaadi ma burtay mise waa ku jirta ya assalaamu alaykum bay ku burtay ugu لماذا؟ لأن عبادته بقيب سنتو عبادته ما كلا عصحيس مرة هل عبادته هاي ما كلا عصحيس وإنتي هرن هاصحض وإنت نهبرت الله ليهم هاي ساس درادة مالين كورن بابورية وبالتالي كورن وين يسوق الله يسمالين كاي سجاوة خلافكم تشروا يسلق لي فوق هذا والله أعلم نعم جزاك الله خير شيخ سؤال شن كلا ثلاثة هاي عيارها جيم كبلاي ستيشن كله يقانون لأن يرد عيارته بس حبيت يبقى أدو عياره وليه رمضانك marka lacagna way dhigtaan oo qofkii laga reeyo lacagtiisi waa la qaataa midka kale ee ka reeya qaata marka qamaar miya midaas haday noqoto soonka maxay u dhimaysaa waa khamaar sideedaba ciyaar muqaalaba iyo kala adkaansho ku salaysan waxna lagu kala qaadanayo waa khamaar noocay dooni ha noqoto صدح مركي لك صور ريبو النبي قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث عيار وحلوك لقاتاي مجرت شريعة إلا صدح مويه صدح عزمعيتها هاي وترتن كفردها إيو ترتن كجيلة إن الله وضبه حي أهانشرين قاديد كي وقت قاسي اللي قد قال لمجر تكنيك هذه جهات كله استعمال شري أهانشرين مركا عيار كلية ما هي توبرشها كجرتا ووسيلة من وسائل الجهاد مقصد كي جهاد كابي لبضوضب وسيلوي مدة صدحادي وحوي وتوكتوا ويضن عيار كلية ميه جهاد كي بأخذ مينيس إن لتوك دستو أما الليب أما إيبو أما محوء هاي حبط أما مدفع أيضا توكتوا وحل إلهدو أيضا أحوال وكلا قادن كراه صدح ذا سوحان أهين النبي قول صلى الله عليه وسلم لكم كلا قادن كراه طيب عيارهني وكسي دوينهن شحذا إيو دبلدة إيو تربكة إيو والله العصوبة هذا صوبها إيو بنوني عيارته أما قعنته أما اللقطة ده وحي بابك كوي ما دور دل وحي لو كلا قاتوا ونوع خمارك كم دور
لأن وحي سوق ليان آيات رب الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وعمل شيطان واحد عمل شيطان حتى هدا وحبل وكل قادنين ووقت اللمس النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه روح إسلامي وناجي سوحة كم ذا وحن فائدة أولها إنه يستقطعه وقت كم حاجة استقلوا منه وقت عيار تدل فردده بدك كلام حكي ليس عيارة حتى قار واحد شركو كوتش محصدون لو قوليه يا أرد أو شركو هاتش محصدون بنوني إذا وحبكوا كلا قادني إنه عوردي إنه أي أسطورنتها عيارة شركو هاكوتش محصدون يا wuxuu jirku wax ka helayo inaad waqti ku bixisaay dhibana waa loo baahay waa caafimaad laakiin ciyaartani waxna kama helayo jirkii oo faa'iido jir kuma jirto faa'iido caafimaad kuma jirto waana waqti lumis waana ramadaan hadana ya waa dad khasaaray wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh su'aashan kale waxa leedahay qof sooman oo hadana salaadihii faradka ay ka tagayeen sunkiisa maxaa faa'iido ku jirta hadduu salaadaha ka tago oo uusan tukaninba haddana soomayo sida Soomaali badan Soomaalida caadaadkeeda cajaa'ibta way ka mid tahay soonka iyo salaada agtooda soonka culus saas daraadeed ruux maalin ramadaan cunahayoon soomanayn Soomaalida agteeda waa gaal dhalay waa قال له يا بيكولين أو محو قال كل نقطة على شاري واحد يقولين محو هاي مال رمضان ضدكم صومن بوحونه قال واحد وهدول تكننا ومسلم ضلي واحد واحد صعرة صلاة دي صومك كوين كم مهم سن يا صلاة ده مهم سن صلاة ده مهم صلاة وتيركي لباد أما بعد الشهادة وتيرك كوباد صومكم وتيرك أفراد واحد ساس دراديد بقى علماء waxay ka doodeen ruuxa salaada ka tagay magaal baa mise waa muslim daahirka xadiista iyo quraankuna waxay xoojinayaan ra'yiga qaba taariku salaadku inuu gaal yahay oo muslim ahayn ra'yiga iyo madhabka hadii la qabtana ruux gaal ah oo aan muslim ahayn cibaada ka saxmayso sakan ka asaxaynin ولا صوم بان كأسحينين ولا حج بان كأسحينين ولا عمران كأسحينين وأمرك الله قبط الرأي قد هي تارك الصلاة وقال وأنا رأي حق بدن واحد فوق هذا قاركود أي مرين سيداس درادت أنت صومك كود داليسو إن كبدن صلاة كود دال صلاة هجاج أيدا أساسا وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما لنت قيامة وحى أجوه الرأي أدونك لقى حسابي صلاة واحد haddii salaada xisaabteedii u hagaagto cibaadaadkii kale oo dhan waa hagaagaya haddii salaada xisaabteedii halowdana ama kharibantana kulli wixii kale oo dhan waa raacaya Soomaaliyeed marka soonkaagu muxuu tari waaya haddaadan salaadiiba tukanayn wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh qof baa wuxuu leeyahay nin gabar kufsaday oo qaran la ururinayo qarankaas ma ka qayb qaadan karaa أجر مكيلا يا هدي أم بحيث صنكي واحد مودي مثلا قارن كله أورورنا يو مساقي بالوجود دفاعي بس جوار يديف وقاري بالسينة هدي ظالم كجوار كفصدي حواليه الوجود دفاعي لها أيهين أحبها كوب بحني أنت كوب بحني سنة كواني محيالي ويعان على الإثم ألا نوحول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحي الدنبي يحد قذب هاوغو كالمينين الروح الصميني هاو واحدتك بابيه خاص صوالي بابيه ظالم وحد لي أما الضمر كفصدي أما كعن كديق لا أما وحخ الربي أيا قدال لمرسانا يا مركاسا حول الله أرورنا يا لقود دفاعي هذه مسألة الصدات هاي وحول الله قم بحين كرو هذا تكون بحسن الدنبي باتا يدونا هذه مسألة تهي قبل حقيدي
iyo dhibkii gaadhay waxa loo ururiya hadday tahayna way mudan tahay in la caawiyo way mudan tahay in la caawiyo laana waa ruux muslim oo dhibana oo la dhibay xuquuqna way leeyihiin dumarka haddii la kufsado ama lagu xadgudbo shariicadu waxay siinaysaa xuquuq bay siinaysaa marka hadduu baabku kaaye oo gabadhii ha la caawiyo ay tahayna ka qayb qaado hadday tahay ninkii daalimka ha la difaacana ha ka qayb qaadan nacam بارك الله فيك شيخ سؤال كلا وحي leedahay qof hadii uu suxurta intaan la gaarin uu xaaskiisa jimaaco kadibna hurdanta la tagto uu soo kaco بعد الفجر uu soo kaco asagoo wali qabaysanin soonkiisa waxa uu gaaraya si kale hadaynu dhinaahno waxa weeye ruuxii isagoo janaabo qaba ayuu waagu u bariyay ama gabadhii oo caadadii ka go'day habeenimo laakiin wali aan qabaysanin baa waagu u bariyay soonkoodii ma wadan karaan habeenkii soonkii waa soo niyoodeen laakiin qabayskii loo baahnaa inay qabaystaan baa soo dib dhacay ilaa waagu bariyay soonkooda way wadanayaan waana sax waxaa yeele waxay leedahay ummu salama radia allahu tacaala canha nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam xaasaskiisa ayuu habeenkii la kulmi jiray waagaa u baryi jiray isagoo janaabo qaba wuu qabaysan jiray kadibna soonkiisuu wadan jiray nebigu sal alla alay wasalam midda soonka jebinaysa waa marka aad adoo sooman wixii aad samayso waa laakiin janaabo habeenkii dhacday habeenkii wax dhacay janaabo ka timid oo qabayskeedii soo dib dhacay markaasi soonka waxba yeeli mayso salaadaad u qabaysan soonkaagana waad wadan insha allahu tacaala wallahu aclam بارك الله فيك qof sheekh su'aashan kale waxay leedahay aabahay oo soon lagu lahaa geeriyooday soonkaas ma ka qalin karaa waa mas'ala khilaafiya الإمام الشافعي عليه رحمة الله وحقباء ولا قلينا يا حتى صونك كي أصل كي واجب كي إلهي كلها فرض كهبا النقطة تصير كه عنود ليشنا يا حديث كوين في الصحيحين من حديث عائشة النبي يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه روحي كيريودا إسقو صون لقولي هاي روح حكتدي سابا كسوميه إمام الشافعي وحيلي xadiidku ma kala qaadin soonkaasi ama ha noqdo soon nadar ku yimid oo adoonku isagu isku laazimiyay ama soonkii asalka ah ee ilaahay ku waajibiyay ha noqdo xadiisku ma kala qaadin saas daraadeed labadaba waa laga soomi karaa waana madhabka daahirka xadiiska waafaqsan imaam axmed baa isagu wuxuu leeyahay soonka nadarka weeye kii faradka asalka ma aha adiga almuhim waa laga soomi karaa hadii soon lagu lahaa waalidka oo ku geeriyoodo waad ka soomi kartaa hadaad ilmihiisii tahay qaraabadiisii waad ka soomi haddaad badan tihiin oo qaybsataanna waad heli kartaan oo ruuxba qayb soomo hal ruux kaliya inuu soo xataa laazim ah nacam بارك الله فيك شيخ سؤال قدام بيسو سؤالها كان إن شاء الله تعالى بالربا ندب دقنينا سؤال قدام بيسو شيخ خفة وحليه هاي dhalinyarada qaar baa masaajidka imaada iyagoo surwaalkooda uu maaragtay ka dhacsan yahay marka wayna sooman yihiin marka salaadaas ma ka ansaxaysaa soonkoodii muxuu noqonayaa soon iyo maro dhacsan horta iskuma xidhno soonka iyo maradu xidhiidh ma laha xataa ruux hadduu qaawan yahay soonkiisu waa saxaya لأن شروط صونك كميد معها إني عورضوا أسطورنتها إني عورضوا أسطورنتها وحلو شرطية صلاة صومة حتى ويسد الله ما شرطية سؤال في رمضان وأذن الله كميت شيخ أنا قاون ويسيسن كره ويسيسو هذا واحد سلقة ويسانو قرن معي لكن ويسد ويكاسح لأن inaad weysaysato shardi uma aha weysada inaad cawrada asturto shardi uma aha cawrada asturkeedu salaadu shardi weeye soonkiina waaba kasii xag jiraaba marka soonku waa saxaya ama ruuxa inuu maradiisa hagaajiyo oo cawradiisa asturo oo maradu xidhanayo uu ka dhigo maro shareecada waafaqsan waa mas'alo goonideeda ah oo marada
raggu ay xidhanayaan hoosna waa inaysan aanqowga ka hoos marin sarwaal hadduu yahay hadday macawis tahay hadduu khamiis yahay waa inuu aanqowga ku eg yahay iyo wixii ka koreeya wixii ka hooseeya waa naar buu nebigu sal alla alay wasalam waana nooc kibir ah waa dhanka kalena waa inay cawrada asturayso cawradu waa intee ragga marka la yidhaahdo cala araajix waa inta u dhaxaysa xudunta iyo jilbaha ama lawyaha intaasaa ragga cawradooda ah intaa wax ka mid a haddaad muujiso waad qaawan tahay haddaad salaad ku tukatana salaadaadu ma asaxayso saraawiishan marka dabada ka sii dhacaya ee dhallinyaradu hadda ay qabaan qaar badan oo ka mida salaadooda waa buraysaa weliba intaa keliya meehe dadkii gadaashiisa ku tukanayana waa ku imtixaanayihin yaa nin dabadu muuqato oo hortaada ku foorfoorsanahay sokadeed maa waa kadeed sidaas daraaddeed waxaan yacni waa wax dib ka yimid waa wax gaalada ugu talagashay in dadka lagu imtixaano waa wax dhallinyarada maskaxda lagaga gumaysanayo waa wax loogu talagalay maalinba in si laynoo dhigo maalin sarwaal dabada ka sii dhacaya maalin sarwaal balaf oo caga waaweyn maalin mar sarwaal ku dhagan jirka ku dhagan yaa mid yani googo-an ood moodayso karmo xero laga guuray laga soo qaaday oo laysku karkaray yaa waxaa maxaa keenay gaalo unbaa uu naga ganacsanaysa caqliga nagay ku ciyaartay oo sharaftii dhallinyarada ku ciyaartay oo gumaysatay maskaxda ka gumaysatay maxaa adiga kugu kalifay inay cawradaadu bannaanaato marka cawrada astura saraawiisha aad xidhan tihiinna saraawiil jidhka ku dheggan ha ka dhigina leanna maradu inay jidhka ku dheg tahay raggana looma ogola dumarkana looma ogola maradu waa inay jidhka ka baxsan tahay leanna jidhkaaga markay ku dheggan tahay xubnihii oo dhan bay sifaynaysaa adiga sarwaalaad qabtaa laakiin yacni waxaagii o dhan bannaan ku yaalla waxaagii o dhan bannaan ku yaalla sawirkaa maradu ay kor ka sawirayso cawrada lama rabo waa inay maradu jidhka ka fog tahay shardigaasina dumarka khaas kuma rag iyo dumarkaba waa laga rabaa marka maryaha waa in la iska hagaajiyo maryuhu waa halis ibliis markuu aabbaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markii uu geedka cunsiinahayay markuu geedka cunsiinayay aabbaheen iyo hooyadeen ibliis dantuu lahaa muxuu ahaa inuu asturka ka dhigayahay suurat lacraaf buu ilahay ku sheegay inuu asturka ka dhigo qaawiyo iyay ujeeddadiisu ahay ibni aadamka guul uu ka gaadho shaytaanku kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inuu qaawiyo oo haweentii marada ka dhigo oo raggii dumarka ka dhigo oo wada qaawiyo waa waxaan gaalada hadda uu ku haysta waa iyo qaar badan oo muslimiin oo raacay oo jidkooda maray ayagoo maryihii heli kara haddana dumarkaa usii daran bal adigu ilaahay markii gaalada hadda markaad aragto raggii dhar dheerdheer bay qabaan dumarkiina dabagelis bay wada xidheen baladu garo war naagaha maxaa dharka gaagaaban ugu xidheen raggana dharka dheerdheer ugu samayseen su-aal isweydiin lama waxay ka socotaa marka ninkii odaygaha baa ku shaqaysanaya wax kale maaha aadamaha waa la isticmaalayaa miskiin waay wax ku adeeganaya mog laakiin shaydaan baa ku adeeganaya sidaas daraaddeed dadkaa shaydaanku ku adeeganaya iyo shirkadaha shayaadiinta u shaqaynaya ee dharka noocaasa dadka muxuu ahay jirkiisa ku qaawinaya cawradiisa yayna ku isticmaalin ruux muslim oo sharaaf leh oo karaamo leh baa tahay